وركبحيو كشرع ذي بلدكو بنددي أفقويو بوريو بانو بيدمو تغيو بسن كان لغو قبي وان كل بلميا بلدكي برداليو برتلو كتالي منتدى كقذبو لامي واي هاي صاحبي السو دوادا كسو دوادا موقال عصب sidoo kale maanta waxaan ka hadlaynaa magaalada Hamburg ee Jarmalka waxa booqasho sharafeed ugu yimid fannaankeena qaali ah fannaankeena weynaa ee Soomaaliyeed Cabdi Baadil Ibrahim Cabdi Baadil wuxuu ka mid yahay fanaaniintii hobolada waaberi ee qaranka Soomaaliyeed isaga oo in muddo ah halkan ku noolaa booqashadiis waxaa soo dhaweeyay dad badan oo Soomaaliyeed oo jooga Hamburg iyagoo u muujiyay kalgacayl iyo sidoo kale inuu yahay fanaan qaran oo ku suntan wadaniyad iyo sidoo kale daljacayl ورحمة الله تعالى وبركاته مقالة هامبورغ جوجنا هل كان مانتو حان كسو دوينينا فنان قرن او هبلد وابري كترسنا عبد بادل ابراهيم او هامبورغ نوغو سو بوقدي عبد ايا سفر غان halka kusoo gaaray marka insha Allah aniga iyo odayaasha magaalada insha Allah waxaan soo dhaweyn doonaa Cabdi ilaahay idinkii waxaan jeclaan lahaa bal soo dhaweyntaas Cabdi meel kala duwan waa geyn doonaa magaalada waa soo tusi doonaa ilaahay idinkii intuu nala joogo hadda se waxaan jeclaan lahaa in maaragtay odayaasha aan u gudbiyo oo iyagu kelmada ay ka dhahaan soo dhaweynta Cabdi insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Yuusuf Ali Jaamac halkan waxaan ku soo dhaweynayaa sidoo gudoomiye hore u sheegayba Ahmed soo u sheegayba Cabdi Baadil fanaan qaran fanaan Soomaaliyeed Hamburg nagu yimid ku soo dhaweynaynaa gaar ahaan aniga waxay abshir ii tahay maadaama ina Baadil uu yahay nin reer Beledweyne ah gaar ahaan xaafadda Holwadaag waa soo dhaweynaynaa meelo badan baan marin doonaa waxa weeye Hamburg buu yimi maasha Allah waxa weeye uu tagi doona insha Allah waxaan rabnaa si qalbi furan iyo waji wanaagsan bina u soo dhaweyno fanaanka Soomaaliyeed qaran Soomaaliyeed Cabdi Baadil assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo dhaweynaynaa fannaankeena weyn Cabdi Baadil oo muddo badan noogu kala dambeysay anoo yar baan fiirsan jiray riwaayadihiisa aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan la kulmo waana soo dhaweynaynaa magaalada Hamburg insha Allah meelo badanna waa soo marmarinaynaa waana mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي الله عبد الشيخ محمد مرسل وحان سو دaweynaynaa fannaankeena weyn oo maanta nagu soo booqday magaalada Hamburg gaar ahaan maxaan la haysay Germany waxaan jeclaan lahayn inaan maxaan la haysay saan si fiican u soo dhaweyno waxaan jecelnahay inaan meelaha wanaagsan oo Hamburg ay taariikhaha ku leedahay inuu soo arko waxaan leenahay fanaan soo dhawaaw fannaankeena Cabdi Baadil waxaan sidoo kale dalxiis iyo booqasho isugu jirta aan ku geynay qayb ka mid ah magaalada Hamburg oo goobaha ugu quruxda badan oo uu indhaha ku soo joogsaday isagoo uga mahadceliyay dadka Hamburg ku nool gaar ahaan hay'adda Anti-Charity Foundation oo gudoomiyaheedii iyo tiim kale ay u raaceen goob lagu dalxiiso oo aad u qurux badan kuna soo dalxiisiyeen isagoona ka mahadceliyay ayaa waxa uu yiri maasha Allah aad baad u mahadsantihiin haddaad tihiin dhalinta reer Hamburg gaar ahaan dhalinta Soomaaliyeed ee isjecel community-gan aan mataqaanaa halkan inoogu qoran aad arkaysaan waa dad mataqaanaa soo dhaweynta ku wanaagsan marka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan idin la kulmo gaar ahaan Yusuf Ali oo aan reer Beledweyne isla ahayn kale Yusuf wuxuu ahaa nin mataqaanaa wiilkii iga yaraa kasii yaraa weeye mataqaanaa kubadda ay wada ciyaari jireen marka wakaa aad baad u mahadsan tahay marka hadda waxaa weeye Garowe ayuu mar dhow u socdaa Garowe ku soo ciyaar doonaa kadibna wuxuu yiri webiga Beledweyne ku soo dabaalan doonaa qoonadii waa isugu imanaynaa insha Allah marka Soomaalinimadu waxay ku fiican tahay isdhexgalka ninkan waa reer Beledweyne anna waxaan ahay reer Beledweyne has jeclaadaan reer Garowe has jeclaadaan reer Boosaaso has jeclaadaan reer Kismaayo has jeclaadaan reer Baydhabo has jeclaadaan waxa weeye gobol has jeclaadeen ummaddu has jeclaato
meediyaha xumaanta ka daaya ka daaya miidiyaha waxa weeye wax wanaagsan soo gudbiya aad baad u mahadsantihiin waxa weeye waa laga dardaarmay wax xun iska ilaaliya waxaan leeyahay axyaa wadani axyaa wadani ya Soomaal cabdi soo dhawow halkan waxaa la yiraahdaa Velleback ama Velleback waa xarun dalxiiska iyo gobolada waqooyiga ay isku yimaadaan dadka degan ay u soo dalxiis tagaan waa meel ballaaran oo yani ay leedahay meel familada iyo caruurta iyo dadka kooxaha groupka ay yimaadaan ay ku dalxiisaan waxa ku xareysa xayawaanaadkii waxa ay leedahay haraweyn oo sidoo kale lagu dabaasho baraagadihi caadiga dabaashay leedahay meelo dhir ah oo indhuhu ay ku joogsanayaan oo aad u qurux badan bay leedahay marka halkan waxay kamid ah meelaha dalxiiska insha Allah kusoo dhawow waa dhawaay ma sha Allah waa baawrta saa u safan arkaa aad iyo aad baawrta ilaa geesaha safan ilaa dhinaca aad iyo aad waa arkaa ma sha Allah arkaysid ba hadda familidii iyo dadkii qaarna waa ka soo baxayaan qaarna waa baabuurka baxayo ka sharaacdi beledku wandadii afgooyo uuriyo baano baydhabo tegayo bisinkana lagu qabay wan kula ballamaya bisinkana lagu qabay wan kula ballamaya beledkii bardaaliyo birta luuqu taaliyo andada ka gudubo laamiga burburayo kabaan ha qaadin bidax jira ha raaco istaag baarki dhuumo birganiga ku sii sumo barqadii kolkay tahay beled xaawo waa tegin waxaan kaa baryayaa calbeerkada ha seexan batrool isaga shub rakaabkana biyaha sii saaxiibayaal guud ahaan intaas ayaan kusoo gebgabeynayna muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo